wafdigan uu hogaaminayo wakiilka qaramada midoobee qaabilsan Soomaaliya James Wan waxay kulamo la qaateen madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ee dawlad goboleedka Jubbaland xubnaha golaha wasiirada ee dawlad goboleedka Jubbaland iyo xubno ka socday dawladda federaalka ee Soomaaliya kulamadan waxa laga wada hadlayay amniga guud ee Jubbaland sidii loo adkeyn lahaa iyo sidii doorashada Jubbaland amnigeeda loo sugi lahaa inta ay socoto xilliga doorashada Jubbaland ay dhacayso ay mas'uuliyiintu isku afkarteen in aan waqti lagu dari doonin isla markaana meel la isla gartay ay ka dhici doonto doorashadu arrimaha kale ay ka wada hadleen madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland iyo wafdigan ayaa waxa kamid ah soo xulista xildhibaanada baarlamaanka dawlad goboleedka Jubbaland iyo sidii loo xareyn lahaa ergada xuleysa xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland odayaasha dhaqanka ee soo xulaya mudanayaasha baarlamaanka ayaa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay soo gaarayay magaalada Kismaayo ayadoo la filayay in ergada la xareeyo isla markaana ay soo xulaan baarlamaanka James Iswan iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland waxay si gaar ah uga wada hadleen doorashada dawlad goboleedka Jubbaland amniga iyo xasiloonida iyo sidii doorashada xilligeeda ay ugu dhici lahayd wuxuuna James Iswan uu sheegay in madaxweynuhu ay isla afkarteen arrimo badan oo muhiim ah kulamadan oo saacado qaatay saxaafaduna ay dibad joog ka ahayd markay soo ilaadeen waxa warbaahinta la hadlay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam wuxuuna faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen wafdigan wuxuuna sheegay in ay isku afkarteen isla markaana ay rajeynayaan in si wanaagsan ay u dhacdo doorashada dawlad goboleedka Jubbaland waxaan ka wada hadlay arrimo badan oo soo ka tacsiyeeyay qaraxii maalin dhaweed ka dhacay magaalada Kismaayo ay hotel Madiina soo weerareen al-shabaab iyo arrimo badan oo guud ahaan siyaasadda waddanka Soomaaliya meesha maraysa iyo arrinta Jubbaland iyo doorashooyinkii arrimo ku saabsan waxaan oran karaa guud ahaan aragtida isu dhow waanu ka lahayn qodobadii aanu ka wada hadalnay waxaanu sheegnay Jubbaland inayna dhibaato gaar ah oo ay qabta ayna jirin waxa waddankan lagu dhaqi karaa ama ku hogaansami karaan ay tahay in la ilaaliyo dastuurka waddanka u yaala taasaana ah waxa dadka kala hagi karaya ficlanna aragti isu dhow waanu ka lahayn waanu sheegnay doorashada Jubbaland inay waqtigeedii ku dhacayso amnigeeda iyo meesha ka dhacaysa mas'uuliyadeeda ay reer Jubbaland leeyihiin James Wan wakiilka qaramada midoobee ee Soomaaliya ayaa guud ahaan dadka Soomaaliyeed tacsi u diray isagoo uga tacsiiyay weerarkii bahalnimada ahaa ee lagu qaaday hotelka cascasay ee magaalada Kismaayo kuwaas oo ay ku dhamaadeen dad aad u fara badan halka kuwa kalena ay soo dhaawacmeen wuxuuna sheegay in qaramada midoobee markasta ay garab taagan tahay Soomaaliya wuxuuna ka codsaday bulshada Soomaaliyeed in iska kaashadaan sidii looga guuleysan lahaa ururka al-shabaab President Midoobee and I discussed a range of issues regarding security, economic development, and governance in Jubbaland. aniga iyo madaxweynaha Jubbaland waxaan ka wada hadlay sugidda amniga kor u qaadida dhaqaalaha iyo xasiloonida soo xulista baarlamaanka dawlad goboleedka Jubbaland ee dooran doona madaxweynaha xilliga rasmiga ee doorashada la qabanayo oo ay ku dhacayso xilligii loogu talagalay arrimaha kale aan ka wada hadalnay waxaa ka mid ah xasiloonida guud iyo sidii doorashada ay si nabadgelyo ugu dhici lahayd waxaan rajaynayaa in laga wada qayb qaato guud ahaanba nabadgelyada iyo xasiloonida Jubbaland and that it follow a fair and transparent process broadly acceptable to all. Such a process would enhance prospects for peace, stability, and economic development in Jubbaland and in the region. doorashada dawlad goboleedka Jubbaland oo ay ka hadhay muddo ka yar bil ayaa waxaan wali la soo xulin mudanayaasha baarlamaanka dawlad goboleedka Jubbaland kuwaas oo lagu wado in ay doortaan madaxweynaha Jubbaland Mas'uud Cabdullaahi Aadan TV Universal magaalada Kismaayo